Asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan rabaa in idiin soo koobo filimka lagu magacaabo School Iceland. Filimka waxa uu ku bilaabmaya 1973 halkaas waxaan ku arkaynaa nin lagu magacaabo Bill kaasoo ah madaxa shirkad samaysa saameynta. Waxa uuna soo gelaya aqalka cad asagoo hadafkiisu yahay inuu ku qanciyo madaxda halkaas joogta qorshihiisa. Waxa uuna u sheegayaa in uu soo helo meesha ay ku taala jasiiraddu. Sidoo kale waxa uu ka dalbanayaa madaxda in ay siiyaan lacag sidoo kale koox ku wehelisa safarka. Marka hore madaxdu waa ay diidayaan laakiinse waxa uu sheegayaa in ay koox ruush ah dabagal ku hayaan jasiiradda. haddii ay ogaadaan ayagu ay heli doonaan hantida ku qarsoon jasiiradda isla markaasna madaxdu ay ogolaanayaan qorshihiisa. Intaas kadib madaxdu waxay diyaarinayaan tiim saamin ah kuwaas oo saaminaya jasiiradda waxaana hogaamiye una ahaa nin lagu magacaabo Beckett. Sidoo kale tiimka waxaa lagu daray nin khabiir ku ah helidda iyo hagidda waddooyinka kaasoo lagu magacaabo James. Intaa kadibna waxaan arkaynaa in tiimku diyaar u yihiin inay ku safraan jasiiradda waxayna soo raacayaan markab ayagoo usoo jihaysanaya dhankaas iyo jasiiradda. Sidoo kale kooxda waxaa la raaciyay sawir-qaade lagu magacaabo Mason. kooxduna waxa ay ku raaxaysanayaan jawigooda ayagoo waqtiyo qurux badan ku qaadanaya goobta. muddo yar kadib kooxdu waxay soo gaarayaan meel u dhow jasiiradda isla markiina Bill oo ahaa kabtanka ayaa waxa uu u yeedhayaa kabtan Beckett oo ahaa madaxa ciidanka. waxa uuna u sheegayaa inay hortooda taalo duufaan aad u weyn taasoo ay macquul ahayn inay kaga gudbaan markabka. haddii ay isku dayaan inay markabka kaga gudbaan ay dhammaantood ku dhiman karaan. taas beddelkeedana waxa uu ku dhahayaa waxaan jasiiradda ku gaari karnaa diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaasoo loo yaqaano helikabtarka. isla markaana kabtanka iyo tiimka intiisa kale waa ay aqbalayaan ayagoo ku diyaarinaya in ay jasiiradda ku galaan diyaaradahaas. intaas kadib kooxdu waxay soo dhexgelayaan duufaano waxayna ku dhibaatoonayaan inay duufaanahaas ka gudbaan waxaana agagaarkooda ku dhacaya dillaacyo waaweyn kuwaas oo ku sababaya kooxdu inay cabsi galaan. dadaal dheer kadib kooxdu waxay ku guuleysanayaan inay soo gaarhaan jasiiradda. ugu dambeyntii kooxdu waxay soo gaarayaan jasiiradda waxayna hortooda ku arkayaan muuqaallo aysan weligood ku arkin dhulka caadiga ah. waxa uuna ahaa mid aad u qurux badan oo cagaaran isla markiina waxa ay bilaabayaan in ay tijaabiyaan jasiiradda ayagoo bambooyin dhulka ku tuuraya si ay u ogaadaan jasiiradda hoosteedu in ay tahay mid ammaan ah iyo in kale. isla markaana waxaa si xoog leh diyaaradda ugu soo dhacaya geed aad u weyn oo aan la garanayn meel uu ka yimaaday. intaas kadibna kooxda oo ku jirta xaalad shoog ah waxaa hal mar si lama filaan hortooda uga soo baxaya gacan aad u weyn. kadib markii ay si fiican u fiiriyeen waxay ogaanayaan inuu yahay goorile aad u weyn kaasoo lagu magacaabo Kong. waxa uu ahaa boqorka keynta. waxa uu istaajinaya weerarka isagoo u digaya ciidanka si ay u joojiyaan weerarka. intaa kadibna waxay bilaabayaan inay rasaasayaan ayagoo ku wareegsanaya laakiinse waxaan arkaynaa inaysan rasaas jirkiisa wax dhib ah u geysanaynin. isagoo aad u xanaaqsan ayuuna goobta iskaga tegayaa laakiinse kabtan Beck oo si carar leh usii fiirinaya goorilaha maadaama uu dilay qaybo badan oo ka mid ah askartiisii. intaa kadibna waxayna la tusaya kabtan Beckett iyo qaybo ka mid ah ciidamadiisa kuwaasoo ahaa qaybihii shilka ka badbaaday. waxa uuna helayaa 2 qof oo ka mid ah ciidamadiisa waxa uuna ku farxayaa imaanshahooda. intaa kadibna waxa uu soo dhaqaaqaya dhankaas iyo kabtankii Bill waxa uuna ku qabanaya bastoolad isagoo ugu hanjabaya in haddii uusan u sheegin waxa dhabta ah ee jasiiradda ka jira uu dili doono. isaguna waxa uu sheegayaa wax walba iyo in hadda ka hor uu yimaado jasiiraddan. kadibna waxaan arkaynaa James iyo kooxda inteeda kale waxa ay soo gaareen meel ay biyo fadhiyaan halkaasna waxa ay kula kulmeen noole aad u weyn kaasoo ka mid ah nooleyaasha jasiiradda ku nool. waxa uuna ahaa dibi aad u weyn waxaan arkaynaa inuusan wax dhib ah soo gaarsiinaynin waxaana iskaga tagaya goobta. waxaan arkaynaa kooxdu in ay hore usoo gashay keynta. inta ay dhexda socdeenna keynta waxay kooxdu la kulmayeen caare aad u weyn taasoo kooxda weerar kusoo qaadaysa waxayna isku dayayaan inay la dagaalamaan ayagoo ku furay rasaas aad u badan laakiinse waxaan arkaynaa inay rasaastu wax dhaawac u geysanaynin waxayna ka jarjareen cagaha ayagoo halkaas ku gabagabeynaya nolosheeda. dhanka kale waxaan arkaynaa kooxdii ka koobnayd James iyo Mason iyo dhowr xubnood oo ka mid ah tiimka waxay soo gaarayaan goob ay ku nool yihiin dad duurjoog ah. inta kadibna dhammaan qabiilku waxay kusoo baxayaan dhalinyarta iyaguna waxay ku qabanayaan qoryo balse intuusan dagaal ka dhex qarxinba waxaa goobta imaanaya nin da ah kaasoo lagu magacaabo Merlow. waxa uuna dejinayaa dagaal waxaan ogaanaynaa inuu ninkani ka mid ahaa ciidamada hadda ka hor jasiiradda loo soo diray. dhanka kale waxaan arkaynaa mid ka mid ah ciidamada loo soo diray jasiiradda isagoo ku mashquulsan dhaawiciisa. intuu dhaawiciisa iska dhayay waxaa goobta imaanaya Kong isaguna markuu arko Kong waxa uu cabsi darteed ku cararaya goobta waxauna ku dhuumanaya dhagax hoostiis. intaas kadibna waxaan arkaynaa inuu Merlow usoo kaxeeyay kooxda dhankaas iyo hogaamiyaha qabiilka si uu u tuso goobaha qadiimiga ah. waxa uuna uga sheekeynayaa sheekada Kong iyo jasiiradda inay mar walba soo weeraraan bahale halis badan kuwaasoo lagu magacaabo Cruiser kuwaasoo dhibaatayn jiray dadka tuulada ku noolaa. Kongna waxa uu ahaa mid mar walba badbaadiya dadka ku nool tuulada waxaana kooxda u sheegayaa inay doontiisa la hagaajiyaan si ay ugu baxaan. intaa kadibna waxaan arkaynaa inuu Merlow ka tegay dadka tuulada waxaana dareemaynaa inay ka xun yihiin bixitaankiisa. Mason waxay ka qaadaysaa sawiraan badan oo xasuus ah kadibna Mason waxay usoo baxaysaa banaanka. intaa kadibna waxaan arkaynaa in mid ka mid ah xayawaanada duurjoogta ah ay saaran tahay diyaarad aad u weyn waxayna isku dayeysaa Mason inay caawiso. intaa kadibna waxaan ogaanaynaa Mason inaysan awoodin kadibna waxaa goobta imaanaya Kong kaas oo diyaaradda ka qaadaya xayawaankii waxauna si carar u fiirinayaa Mason. intaa kadibna wuxuu iskaga tagayaa goobta halka dhanka kale Merlow iyo Vector ay hagaajinayaan weli isku dayeen inay dhammaystiraan doontii ay ku bixi lahaayeen. dhanka kale tiimka waxay isku diyaarinayaan inay subaxnimadii ka baxaan jasiiradda waxaan arkaynaa dhammaantood inay diyaar u yihiin inay ka baxaan jasiiradda. subaxnimadii markii ay yimaadeen doontii si ay u dhammaystiraan waxaa si lama
filaan ah ku noqotay intii doontu ay shaqaynayso tiimkuna ay ku farxayaan laakiinse farxadooda waxaa kala jaraya qabiilka ayaga oo murugo u muujinaya bixitaankooda Marlow siday ahaataba tiimku waa uu ka soo baxayaan goob ayaga oo raba inay jasiiradda oo dhan iskaga tagaan ugu dambeyntii waxaan arkaynaa in ay labada tiim mar kale dib u wada kulmeen Marlow maadaama uu isagu jasiiradda kala garanaya waxa uu noqonayaa ninka kaliya ee hogaamin kara dhammaan dadka intaa kadibna waxa uu soo kaxaynaya dhankaas iyo meesha looga baxo jasiiradda ugu dambeyntii kooxdu waxay soo gaareen meel u dhow meesha ay ka bixi lahaayeen laakiinse meeshan aad ayay ceeryaamo u tahay oo macquul ma ahayn in laga gudbo balse intii ay wada hadlayeen waxaa goobta imaanaya makhluuqa weynaa nasiib xumo waxa uu soo weerarayaa tiimka iyaguna waxay bilaabayaan inay iska celiyaan laakiinse waxa uu ku qarsoomaya ceeryaamada darteed